daawadayaal iyo dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka BBC-da ee baraha bulshada telefishinka iyo waliba raadiyoga aad ka dhageysan kartaan caawa ama maanta baan raada waxa marti ah Sacada Mire oo ah gabadh Soomaaliyeed oo ku takhasustay cilmiga taariikhii hore ama archaeology shahaadada PhD-ga ay ka qaadatay jaamacadda London marka Sacada wax badan bay ka soo shaqeysay oo ku saabsan xagga archaeology-ga iyo asaartii hore ee Soomaalida laakiin caawa Sacada halkan waxa ila fadhidaa waxay soo qortay oo ay soo bandhigtay buug cusub oo la yiraahdo Define Fertility oo ka dhigan dhaqamadii hore ee dhulka Soomaalida ka jiray ama Afrika ka jiray ama waqooyi bari ka jiray ama Soomaaliya ka jiray Sacada ku soo dhawow BBC-da aad baan ku soo dhaweynayaa waan dhawahay bidaan oo mahadsantahay Sacadiyo in mar horena waan BBC-da wad la kulantay oo la soo shaqeysay documentary bad kala soo shaqeysay dhageystayaasha iyo daawadayaasha BBC-na wala socdaan shaqadaada laakiin caawa halkan waxaan u fadhinaa arrimaha inaan ka hadalno buuggaasi buuggan aad qortay maxaad nooga sheegi karaysaa ee taariikhii hore ka hadlaya buuggani waxa weeye buug aan bilaabay adigu 10 sano ka hor oo aan ku bilaabay inaan fahmo taariikhda iyo dhaqamadii soo maray geeska Afrika siiba taariikhda Soomaalida iyo meesha aynu ka soo galno dadka aynu agdeganahay iyo region koodan ilaa xitaa Red Sea marka waxaan doonayay in aan fahmo sidii aynu ku nimi meesha aynu joogno maanta alashan fikrad ahaan dhaqan ahaan archaeology marka aan baaray waxaan ogaaday inay goobo fara badan jiraan oo ina tusaya dadku sida awal u kala noolaayeen iyo dhaqamo kala duwan oo haysteen marka dhaqamada waxa dareemaysaa qaar waa inoo gooni qaarna waxaynu la leenahay la wadaagnaa dadka agteena ah diinta islaamkana imika waxaynu la wadaagnaa dunida oo dhan marka waxaan eegay imika kale tole magaalooyinkii hore magaalooyinkii qadiimiga ahaa si aan u fahmo bulshadu siday ahayd intaynan xitaa qortooyooyinkan aynu imika naqaano ee Awdal Kingdom iyo Ifat Kingdom ee muslimka ahaa ay taariikhdoodii inuu aynu kuwa ka horeeyay kuwan inuu baynu wax si yar ognahay waayo waxa diinta islaamta ayay fidiyeen oo taariikhdii waan yarahaynaa laakiin aasaartan baara waa 5,000 sano marka waxaan doonayaa inaan fahmo ilaa ma at least 3,000 years horta 3,000 sano waa 3,000 sano ugu dambeysay ayay isbedeladii ugu weynaa dhaceen waan gartay Sacada sida og tahayba dadka Soomaalida taariikhda sokaaleega taariikhda islaamku waa diimiha waaweyn Ilaahay soo dejiyay diintii ugu dambeysay weeyaan matalan waxa weyn dhawaan bay timid laakiin dhulka Soomaalida ama geeska Afrika markaas dad badan taariikhda diinta islaamka wax dhaafsiisanba ma hayaan maxaad kala kulantay baaristaadaas dadka Soomaaliyeed ee dhulka wax ma laga qoray hore ma jiraan aasaartaad aragteen aad magaalooyinka sheegaysid aragteen iyo maxaa ugu la yaabka badnaa baaritaankaas intii uu socday islaamka ka hor baan ka hadlaya runtii taas waxay ahayd su'aalaha ugu weyn aan buuggan isweydiiyey oo waxaan doonayay inaan fahmo dadka inaga horeeyay inaga waxa la yiraahdaa quruumihii hore meesha deganaan jiray marka sidii inagu kamid ahayn quruumaha ay dadku u sheegaan sayna ka soo farcamin dadkii marka laakiin waxaan fahmay sababta ay u haystaan fikradaasi dhaqankii ayaa isbedelay marka dhaqamadani iyo waxyaabaha aan aasaarta imika ku arkaynaa waa wax aynan runtii dareemaynin inay naga tahay waa diinta islaamka habbaynu u dhaqanaa imika kale waxa jira xabaalo aad arkayso inay ku rideen weelal ama ay ku rideen sanamo yar marka inagu sida dadkeenni uma aasno dadkeenna caadi diinta islaamka aynu raacnaa sidii loo aasay marka already waxaad arkaysaa dadkeenni aasaartii baaba muujinaysa inay dadkani naga duwanaayeen haddaan kaa dhex galo waad og tahay Sacadiya dadka Soomaalida diinta islaamka haystaan dad badan ayaa hawshan wado kale dadka qaar waad aragto ma jecla taariikhda hore xitaa in la baaro fahamto ma jecla in la ogaado wixii hore waayo imka adduunku uu socday laakiin dadka Soomaalida qaar baa sidaas
maxaad markaasi sideeba dadka ku fahamsiin karaysaa inay hawshanaad baarista ku samayseed buuggan ka qortay define fertility oo kale waxa aan anigu isleeyahay dad aan taariikhdooda ogeyni ma fahmayaan meeshay dunida ka soo galaan inagoo horta runtii maadaama aynan baarin dhulkeena diinta islaamka ka hor waxa inaga maqan resources badan iyo fikrado badan oo aynu la qaybsano dunidoo dhan maanta muslimiin baynu wada nahay waxani waa taariikh hore laakiin haddaad og tahay taariikhdaada iyo meesha aad ka timi waxaad fahmaysaa dunida meeshay dadkaagii ka soo mareen iminkoo kale tole strategically dhulka Soomaalida Horn of Africa meel wuxuu strategic uga yaala caalamka waxa soo maray dhaqamadii civilizationadii dad maaragtay horumar xada gaaray horumarkaana waynu ka tirsanayn aasaartu waxay ku tusaysaa iminkoo kuwaas waxba nooga sheegi karaysaa Saadiyo iminkoo kale tole waxa kamid ah Africa oo kale tole waxa la xisaabiyaa dadku inay dhagaxaanta isticmaali jireen ugu horeyntii waxa la yiraahdo Stone Age ka bacdina inay bilaabeen Iron Age iron kuwa birti marka la isticmaaliyay marka hadii aad og tahay inay iminkoo kale goobaha aanu baadhnay oo kale tole goobta oo barkhadle oo kale goobta Cabaasa oo kale oo barkhadle waxay ku taala Hargeysa agaarkeeda Cabaasana Boon bay ku taala Boon magaalada Boon awdo Boorame ay u dhowday marka goobahaasi waana waxay ka badan yihiin ilaa 100 magaalo oo aanu baadhnoon naqaanoon maabab ka samaynay waxaad arkaysaa in dadkii halkaa deganaa aynay ahaynuun sidaynu u qabno imika inay nomad aynu ahaynu wadanay maxaa la dhahayay reer guuraa xoolo wadatamo aynan ahayn ee ay runtii economigani uu ahaa one economy aanu qof walbaaba hawsha u waday dhaqaale kala duwan la waday marka dad baa waxay ahaayeen specialists oo waxay soo saarayeen waxa dadka kale oo dhan u baahan yihiin soo imika kale tara iron-kii wuxuu ahaa technology horumar tusaya marka waxay iron-kii bay birti bay shiili jireen waxay ka samayn jireen waramadina waa muhiim waayo waa habka ay ugaadhsan jireen ama ay u dili jireen xoolaha qaar ku dagaalami jireen isku difaaci jireen marka wuxuu keenay revolution oo kale marka taasaynu ka mid ahayn waxa ka mid ah iminkoo kale tole habka aynu ula dhaqano xoolaha xitaa taa cilmiga ah medicine veterinary medicine xoolaha dadkii manahay xoolo dhaqato waa inaad fahantaa sida xoolihii loo daweynayay sax marka cilmiga xitaa taa ku duugan aynu u baahannahay maantadan waan gartay aasaartaas kala duwan oo dhan waa la helay waad og tahay qofka Soomaaliga caadiga imika markaynu eegno Saadiya wad ka shaqaysay waxa lagu murmaan ma Carab baynu nahay Carab manihin kan way fahamtay waxaad moodaa inay tahay in Oromadaynu walaalanahay ku sheetiga baynu nahay ama Carab baynu labadaas inta badan lagu murmaa marka waxaad moodaa inaan runtii loo hoosba loo daadegin oo la oran maxaa ka horeeyaba intii aad baarista ku jirtay dawladda Soomaaliya intaana burburinay Maxamed Siyaad Barre waxa jirtay wasaarad qaabilsanayd dhaqanka iyo Soomaalida iyo arrimahaas wax ka caawiyay oo qoraal ah ama documentaya ama la hore loo sameeyay baaritaana oo arrimahan aad adigu imika buugga ka qortay aad baadhay ma jiraan oo aad nala wadaagi karto waxa jira qoraalo fara badan oo ahaa anthropology waxa la yiraahdo social studies-kii dadkeenu dhaqamada haystaan hadda iyo sida ay imika kale linguistics-kii luqadeena la baari jiray bariga archaeology-ga badan cadaan baa baarayay cadaankuna waxa ay eegayeen waxyaabaha trade imika kale kuula yaryar iyo maaragtay laga helay ka yimi Carabta ama ka yimi Masar marka badana may fahansanayn indigenous inaga taariikhdeena marka dadka baaraya waxay ahayn Soomaali ama luqadii xageedii ka wada ama dhaqankii ka wada marka iyagu waxay soo saareen fikradaha ah inaynu diinta islaamka ka hor aynu dadku shitiga oo deganaa dhulkan maxaa la yiraahdaa ilaa shitiga waa dadkan Oromada iyo Canfarta sida Mohadiya Konso Gadeyo waxay wada deganahay environment-kuna waa muhiim waxa jiray laba
meelooda biyuhu fadhiyeen lake turkana oo kale. lake turkana waxay u eg tahay inay tahay meesha dadkan kushitiga ku hadlaa badankooga ay ka soo umkameen. umkanka ay ka soo umkameen qaarba dhinacba u baxeen, luqadihii way isbedbedeleen. marka adigu 1000 sano ka hor diinta islaamku markay bilowda si fiican inay u fido, dhaqamadii kuwii kushitiga is haystay ayaa sii kala bedelmay. soomaalidina dhaqankii islaamkay raaceen. qaar kale imika oromadu waxay haystaan diinta islaamka oo kaliya tama haystaan, diintoodii hore qaar baa haysta oo aynu beri la wadaagi jirnay hore, iyo qaarna waa kristan. koonsadu waa completely badankoogu traditionkoogii bay haystaan, qaar imika isbedeleen. marka badanka isbedelada badankoogu laakiin waxay dhaceen 200-300 oo sano ka hor. iminka buuggaaga markaan hoos ugu daadegno define fertility wuxuu leeyahay hadal laga dhadhansan karo inuu ka hadlaya dhaqamadii hore iyo diimihii hore iyo dadku waxay aaminsanaayeen. maxaad iminka aynu u sheegi karnaa dadka Soomaaliyeed, maxay Soomaalidu aaminsanayd badankoodu intii aan diinta islaamku soo gaadhin geeska Afrika? dadka Soomaalidu waxay aaminsanaayeen in badankoogu inuu jiro waxay maaragtay la wadaagayeen oromada kushitiga diin la yiraahdo the sky god oo ah ilaaha cirka jooga ayay qaabilsanayeen. iyagoo kaliya tana may ahayn, waxay ahayd xitaa Yaman. iyagu Yamantu waxay ugu yeeri jireen Athar. dhinaceennana waxaa la oran jiray Waaq, Eebe, Zaar. xitaa marka magaalooyinkan Soomaalida kale caabud Waaq iyo barwaaqo iyo waxay ka yimaadeen laakiin Waaqaas oo kale waa oralkeenina wuu ku jiraa. dad hore iga horeeyay way taataabteen arrimahan, laakiin anigu waxaan doonayay inaan baaro multidisciplinary waxa la yiraahdo anthropology iyo linguistics inaan aasaartii la isu keeno. marka waxaan isir dadka haddaba siday u ekaayeen archaeologigii waqtigaa dadkan sky god iyo waaqa haysta archaeologigoogu muxuu ahaa. marka waxaan isku qiyaasay aasaarta aanu imika ka helnay Somaliland iyo kuwii Soomaaliya laga helay iyo kuwa laga helay Kenya, Ethiopia, Djibouti ee waqtiga islaamka ka horeeyay maaragtay jiray. marka goobihiiba isu ekaaday, waxyaabo fara badan ayaa isu ekaado aan dareemayno inay dadkan isku dhaqan haysteen. ka bacdina ay Soomaalidu isku bedeleen islaam, dadkan kalena ay waxyaabo kala badan sii wateen ama isu bedeleen Kirista. waan gartay. waxaan ku soo gabagabeyn lahaa sacday wada ku tahay hawlo badan baad qabatay adiga iyo tiimam kula shaqeynaya ama kooxo. imika waxaad ii sheegtay in magaalada Hargeysa agteeda aw barkhad leh oo markaan yaraa la siyaaran jiray oo Sheekh Yuusuf Al-Kownayn uu ku aasan yahay inaad tiri aasaar baa laga helay iyaduna taariikh guun ay leedahay. maxaad aw barkhadle inooga sheegi karaysaa oo aad buuggaagana kaga hadashay hawlihiisa? aw barkhadle waxa weeyaan goob aad iyo aad u muhiima, waayo aw barkhadle waxay ahayd meel diinta islaamka ka horeysay. diinta islaamkana markay wadankeena ku fidaysay dadku waxay oral history waxa weeyaan waxa yimi Sheekh Yuusuf Al-Kownayn, wuxuu yimi goobtan aw barkhadle. waxa joogay sheekhaasi qaar waxay yiraahdaan muslim baabu ahaa, laakiin dhaqan wuxuu haystay bucur bacayr, ama waxay yiraahdaan muslimba muu ahayn. marka oral history way kala duwantay, laakiin goobtii iyada ayaad waxaad ka dareemaysaa mythskan iyo legendkan iyo storieskan la sheegayo inay wax ka jiraan, waayo goobtii aasaarteedii way kala wada duwan yihiin. goobtuna waa goob weyn. marka waxay ahayd goob ilaa 4 hawl qabatay. meel waxay ahayd dadka ay ku aasan jireen oo burial ground bay ahayd muhiima oo diinihii hore dadkii kale xitaa ku aasan jireen dadkooga. marka oo barqad leeyahay Sheekh Yuusuf Al-Kownayn markuu diinta islaamka fidinayay muu tagin meel bana, wuxuu doonayay inuu ka fidiyo santarka looga baahan yahay ee diintii kale ama dadkii kale xogtoodii ayuu yimi. marka waxay dadku u hadlaan imika kale toole in oo barkhadle iyo bucur bacayr ay isqabsadeen oo u buurta ku qabtay. marka buurtii isu qabato sheekada weyn oo talaga sheekay. laakiin buurtii meeshii way taala
eg oral historygii meel bay ka keentay arrimaha qaar marka buurti meesha way taallaa laakiin maxaa ah buurti agteedii oona dadkii hore ogeyn oonay baarin aasaartiba ah aasaartuna waxay tahay xabaalo kala wada duwan oo diimo kala duwana oo beri hore ah 3,000 sano ka hor laga yaabo inay tahay marka taas aanu baadhaynaa laakiin magaalaa jirta xitaa oo barkhadle waa magaalo islaama weeye waayo meeshii ayaa magaalowday markay maxaa la yiraahdaa Oudal Kingdom iyo Ifat Kingdom dadkooga waxay leeyihiin waxaanu ku aasnaa sheekhyadayada iyo rulerskeega magaalada la yiraahdo oo barkhadle ma garatay marka wayba ku abtirsanayaan oo barkhadle waxay leeyihiin Sheekh Yuusuf Al-Qaynuun wuxuu ahaa our 5th ancestor waxa weeye odaygeegii shanaad waan gartay marka meesha waxa ay informationka ay haysaa waxa weeye information sidii Horn of Africa oo kaleba ay tahay mirror of Horn of Africa meel waxay ahayd weligeed la deganaa markii dambe diinta islaamka laga faafiyay waxaan ku soo gabagabeynayaa saacadii dadku ay isku hayaan dadka Soomaaliyeed ee iminka maraya suuqa meel kasta adduunka ka joogan Soomaalidu waxaad aragtay adduunka ku kala filqday taariikhdooda way kala yaacday dadku u kala waad aragtay hawlaha taagan marka maxaad midii laba u sheegaysaa barnaamijkeenan dadka Soomaaliyeed su'aasha korsan ku weydiinay shakhsiyan waxweyn ma carab baynu nahay mise carab ma nihin carab dhaqanka islaamku wuu ina siiyay taa laakiin inagu waxaynu nahay ku shitig laakiin dadka badankooga waxaynu joognaa meel ah strategic marka waa la isguursanayay waa la dhaafsanayay hablo rag dadkii mogsaantay marka DNA anigu maan samayn laakiin dhaqankeenii hore haddaad rabto inaad ogaato waxa weeye ereyada ya archaeology waa ka waxaynu ku shitig people su'aasha kale ku soo gabagabeyna waxaan maxaad dhalinyaradii uga sheegi kartaa jiilka cusub inay taariikhdii Soomaaliyeed iyo taariikhdii dhulkaasi sidee bay u baran kareen sidee bay u xiiseyn kareen maxay sameyn kareen horta runtii waxa weeyaan hawl u baahan thousands of Somalis waayo runtii haddaynu naqaano meeshaynu ka nimi iyo resource-kaynu lahayn iyo habkaynu uga badbaadnay dhibaatooyin fara badan aasaartu waxay ku tusaysaa habkay dadku xitaa u badbaadeen droughts waxyaabahani ma cusba way ku dhici jireen awoowayaashan marka muhiimadu waxa weeye qof walba oo xitaa ku jira profession kale ayaa soo gali kara archaeology wax ka faa'iidi kara marka dhalinyarada waxaan jecelahay in ay bartaan aasaarta waayo waxay tusaysaa taariikhdoodii laakiin xitaa tusaysaa taariikhdii dunida iyo meeshaynu kaga jirno aad baad u mahadsan tahay waxay ahayd Sacdiya Mire oo marti noogu ahayd halkan BBC-da oo ka hadlaysay buuggeeda cusub ee Define Fertility oo runtii ah buug ka hadlaya gobolka Geeska Afrika iyo dhaqamadii hore iyo diimihii hore dadku aaminsanayeen diinta islaamka ka hor iyo waliba arrimaha ku saabsan aasaarta waa mahadsantiin